guud ahaan nolosha ka jirta magaalada Muqdisho waa sidan oo kale roobkii ka daay magaalada Muqdisho ayaa biyo dhigay dhammaan jidadka kala duwan ee xaafadaha iyo laamiyada waaweyn ee dadku adeegsadaan roobabka oo sababay in noloshii dadweynuhu ay istaagto dhimasho iyo dhaawacna ay ka dhashaan ayaa wadada ugu wanaagsan ee Bulxubi laga adeegsan karo tani la mid tahay waxaana loo sheegay in xaafadaha hadii la galo aan arki doono guryo dumay iyo dad barakacay sida daradeedna keena si isku mid ah iyo roobabku u saameeyeen ka daay magaalada Muqdisho dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir taas ayaa keentay in guud ahaan noloshii dadweynaha saameyn xoogan ay ku yeeshaan roobabkan inkastoo aysan jirin degmo kamid ah Muqdisho oo ka badbaaday daadadka roobka haddana degmooyinku waa ay kala daran yihiin inta aan aragnay waxa ugu darnaa degmooyinka Wadajir Dharkiinley iyo degmada Hodan halkan waa 1 Oktoobar ee degmada Hodan dadka soo barakacay guud ahaan waxa saameeyay roobabkii da'ay taas keentay in dadku ay ka soo banbaxaan guryahoodii oo ay maciinsi bidaan dabaqyada dheer ee sida gaarka loo leeyahay waxaana loo sheegay halkan oo ah 1 Oktoobar ee degmada Hodan in dadkii ugu badnaa ay ka barakaceen ee degmadan ku noolaa maadaama barakacayaal markoodii hore u badnaayeen ama dad ku noolaa nolol hoose iyo guryo ka samaysan cawshado sida daraadeed halkani waxa ay tahay ama biyahan iga dambeeya ilaa warta Siigaale ay ku darayaan taas ka dhigan in xaafadii dhexda ku jiray ee markii jidkani caadi ahaa la arki jiray guud ahaan dadkii deganaa ay isaga maaragtay barakaceen sida daraadeed tani waxa ay qayb ka tahay saameynta roobku sababay ee ka jirta magaalada Muqdisho gudoomiyaha 1 Oktoobar ee degmada Hodan oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in qatarta ugu weyn ee dadkan ay wajahayaan ay tahay baalayaashan iga dambeeya iyo kuwa kale oo lamida oo biyaha roobka ay si raacayaan korontadu sida daraadeedna qatar ay ugu jirto nafta bini'aadamka in ay gooyaan ama saameyn kale ay ku yeeshaan xagga korontooyinka waxaan leenahay markii roob da'o mas'uuliyadda iska saaraan korontadu waa local shirkado gooniyaha leh shirkadaha gooniyaha waxaan u sheegaynaa laba qodob way jirtaa maasada iyo dabkuna way kacayaan marka roobku yimaado midda kale laamigan hadda oo shaqaalaha kale baalayaasha ku taagan oo hadda ma garanaysaa liqliqanaya in u yimaadaan oo ka hawl galaan baa la rabaa ama meesha ku shaqaysaysan ama siibaan oo dadka korontada ka badbaadiyaan sida beeko kale Soomaali baalkan leeyahay Muqdisho baawiro kale wixii macnaha isticmaala korontadaas oo baalayaashaas wax ku leh roob markuu yimaado waa in uga fakaraan sida dadka lacagta ay uga xisaabsadaan oo kale waqti markuu soo dhow yahay roob markay arkaan waa in uga fakaraan baalayaashaas sidaas ayagana ku baraarujinayna biyo noo imaadeen guryaa jajabeen maala la waaye nafgooda laakiin ma maqlin laakiin dad oo iska maskiin ee buush oo degan roob ka qaadeen marka ilaahay maxaa ugu baryeynaa qaarku ilaahna si waxaan ka sheegnay dambi waay laakiin adduun weyna maxaa ka codseenaynaa dadka miskiinta inay wax u qabtaan Ali ilaada Ali Abdi Sabriye waxa la yaqaanaa abwaan dalki ooye dalkaani maanta marxaladaha maanta ka jirta hadda daadadkan dhibaatadan ilaahay baana keenay alxamdulillah rabbil ilaahay baa loogu shukriyaa xalayto ummadaan way sigatay booyada ilaahay gobolka u soo diray gobolkaas booyadu u soo diray baa tan lagu cayntay hasaatee dadku waxay ku jiraan buus mar la rabo in la buus ku jiraan nasar ku jiraan dadka buus ku jiraan teelooyin baa rabaan wax qabad bay u baahan yihiin in wax qabad cadaalad loo qabto waraan indhiina horta wax way arkaan inaan meesha banaanka wadanay wada aragtaa mugti marka waxa la wixii gurigii iyo alaabadii daad baa naga qaaday anagana xalay dilqi baa nalooga soo cidada noo soo gurmado meeshana keenay xalinta marka ninkan islaamka baa ilaahay noo soo diray meeshan na fariisiyo na gelay ma garata marka hadda sidaas aragtaan nahay waadna aragtaa waxba ka qarsoon waxyaabaha ay tahay in dadkan iyo kuwa kale oo lamida oo roobabka ay barakiciyaan in si degdeg ah looga jawaabo waxa kamid ah inay helaan hoy iyo cunto dadka ay tahay inay baahidooda sidoo kale degdeg ay uga jawaabaan waxa kamid ah maqaayadaha ku yaala magaalada Muqdisho iyo gaar ahaan kuwa ku yaala degmada Hodan oo dadkan ay daris leeyihiin taasoo suura gelin karta in haddii gurmad loo sameeyo si degdeg ah looga jawaabi karo baahidooda waxaana loo sheegay dadka halkan jooga oo caruur iyo haween ka kooban iyo dad kale waaweynba in xalay halkan ay bariyeen roobkii aad ogeyd ee da'ayay ee adigu uga jirtay guriga Cali Aadan Muumin goobjoog warta Siigaale Muqdisho